Hi my friend, waa idin salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Salaan kadib waxaan rabaa lesson 1 inaan halkaan idinkugu soo gudbiyo barnaamijkeena oo Ilaahay khayr ha idin siiye aan idin soo jiidayay muddo sanado ah aan kasoo fikirayay baan rabaa inaan maanta dah ka furo hadduu Allah idmo. waxaan rabaa inaan adinkan ka faa'iidaystaan salaanta diiran idin wado kadibna idin gudagado cashirka maanta hordhiciisa ay tahay. marka qofka wax dhageysanayo ama wax aqrisanayo waxa laga doonayaa inuu alladina yastami'una alqawla wa yattabi'unahu ahsana inuu raaco wax wanaagsan oo ka qaato maadaama waxaan ay yihiin wax oo la baranayo. waxaa la rabaa inaad adina dadaashid. marka halkan waxaa cashirkeena oo ka bilaabanayaa greeting and requesting oo ay tahay macnaheeda salaanta iyo macnaha iyo sidii loo dhaho. marka awalan waxaan ku bilaabaynaa greeting and responses sida loogu jawaabo salaanta. awalan good morning better, good morning sir, hello standard 1, hello madam. intooda waa salaan, afartaas salaan. reading and writing those words: good morning better, good afternoon, good evening, please, may I, sorry, excuse me, goodbye, thank you. halkan waa su'aalo, question ayaa la dhahaa. su'aal waa su'aal. how are you children, how are you Otieno, how are you Mr. Momba, how are you Mrs. Paduma, how are you Mr. Umar, please may I go out, please may I sing a song. question halka ugu gudubno marka waxaan halkaan ka galeynaa letters of the alphabet. awalan waxaan u akhrinaynaa af Ingiriis, then ka bacdi waxaan u Soomaaliyeyn doonaa Soomaali. waa for apple a waaye, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for goat, H for horse, I for ice cream, J for jog, K for kettle, L for leon, M for monkey, N for nesty, O ostrich, B for Bobby, Q for quail, R for rat, S for shoes, T for tree, listen, U for umbrella, V for fan, W for watch, X for marsupials, Y for watch, for yacht, for zebra, Z. thank you. marka casharka waxaa weeye A waa for apple waa tufaaxa, B for ball waa banooniga, C for cat waa bisada, D for dog waa
aiga. E for elephant waa maroodiga. F for fish waa malayga. G for goat waa ariga. H for horse waa faraska. I for ice. J for joog waa jalaatada iyo waxaa waaye garaafada. K for kettle waa jalmada. For lion. For monkey daanyeerka. For nesty ukumaha. Ostrich goronyada. For baby eyga. For queen boqorada. For rat waa dooliga. For shoes kobaha. For tree. U waa umbrella dalada waaye. V for fan waa gaari. W for watch waa saacad. X for mast bell waa gambaleelka iskoolka macnaha hadii oo laga dhiganayo xiisad markay dhamaato waxa garaacayo waa gambaleel. Y for watch yacht waa doonida amba for zebra. Z for zebra waa zebra dameer farowga si aad u taqaaniinbo. marka haddana qaybtay kala baan u gudbeynaa English for English 8 standard baa la yiraahdaa buugan. fadlan janaalka haddii aad ku cusub tahay fadlan subscribe saar. haddii aan la socodsiinay soo dhawaw. waa capital and small letters baa inta ku xuseynaa. haddii aan ku bilaawno capital letters erayada waaweyn waa A weyn ah, B weyn ah, C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Small letters A B C T E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Exercise complete those using small letters A B C. adigoo isticmaalaya ku qor baa lagu yiri halkan small letters A B C D E F G M N O P Q R S. saasa qoraysa writing in small letters erayada hen dog man focus. Thank you. Home guriga u qaado cashadan. What is maanta cashirkeen halkaas ayuu inoogu egyahay. daawadayaal amba dhageystayaal barta ay nagala socotaan waa Cumar Channel. fadlan haddii uu ku xiiso geliyay khayr Allah ku siiyo subscribe-ka nagu caawi walaal waa intaa yar oo aad gacanta dhag gambalka yar aad ku siiso gambalka dibne oo mu'afiratid si casharadeena badankooda ay ku soo gaaraan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته. وعمر محمد آدم oo idin leh maalin wanaagsan dhageyste.